Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam dhamaan walaalahay Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan. Waa mar kale walaashin xabso shire kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo fooldiinka. Fooldiinka muxuu yahay, goormuu hooyada qabtaa, maxaa la iyo sida maxaa la aad ku kala ogaan kartid fooldiinka iyo foosha runta marka maxaa la fooldiinka horta waxa waaye yacni xanuun zaa'idna maahan but maxaa la qaqabasho yar oo aad dareentid xilliga hooyada ee uurka leedahay. Waxayna ku dhici kartaa hooyo walbo ka bilaabato 16 isbuuc ilaa dhamaadka uurka. Maxaa la fooldiinkana waa iska wax normal oo qof walba soo wajihi karo, inkastoo uu jiro hooyooyin qaar oo aanan dareemin. Maxaa la marka fooldiinka muxuu yahay noocee markuu ku qabtana see ku dareemayno fooldiin yahay. Fooldiinka waxa waaye cariiri aad ka dareentid caloosha oo aad dareemaysid inuu wax space lahayn oo jiq aan qatid adiga dhan oo murqaaga dhan ay istaageen. Marka xataa calooshaada aad taabatid aad dareemaysid caloosha inay adeeg naqatay. Maxaa la marka fooldiinkana macnihiisa ma ahan in uu fool ku qabo rabto, is just wuxuu ku diyaarinayaa foosha ku diyaarinayaa jirka hooyada wuxuu u diyaar garoobayaa foosha. Marka haddii aad dareemaysid fooldiin oo laakiin oo is leedahay maybe xanuun run waa kan, waxaa muhiim dhakhtarkaaga inaad u sheegtid ama dhakhtarkaba aad tagtid si laguu baroobeeyo oo inaad furan tahay in kaleeto oo foosha runta ay ahayd. Marka fooldiinka waxaa dareemaysaa caloosha ku adkaato ilaa goormuu yacni ku haynaya calool adeegaas 30 second hadduu ka badan yahay maxaa la oo waqtiga dhamaadka la joogo waxaa laga yaabaa inuu fool run tahay, laakiin haddii 30 second ama ka yar uu yahay fooldiin waaye. Yacni adina cariiri aad dareemaysaa xanuun saas ma lahan fahanteen. Goormee imaadaa fooldiinku wuxuu imaadaa uurka xilliyada hore ama ilaa xilliyada dambe sida aan sheegay 16 isbuuc wixii ka dambeeyo hooyooyin qaar way dareemaan hooyo qaarna ma dareemaan. Maxaa la fooldiinkana waxaa aad loo dareemaa xilliyada ugu dambeeya ee uurka, waxaana laga yaabaa saacad kasta oo mar inuu ku qabto oo maxaa la cariirigaas aad dareentid. Marka fooldiinka muxuu kaga duwan yahay midka kale muxuuna yahay calaamadihiisa. Waxa waaye fooldiinka makuu sababayo inuu makaankaaga uu furmo, maxaa yeelay markii foosha runta ku qabato makaanka wuu furmayaa oo cunugii inuu soo baxo diyaar u noqonayaa. Laakiin fooldiinka makaanka ma furo, badanaa 30 second ayuu joogaa, adina cariiri aad dareemaysaa laakiin xanuun gooni oo saas ma lahan. Marmarka qaar wuu iska imaadaa marmarka qaarna wuu iska baxaa. Waxaa laga yaabaa saacadii hal mar inaad dareentid ama maalintii xoogaa inaad dareentid. Markii oo fooldiin oo ku hayo haddii positionka aad markaas joogto aad iska bedeshid haddaad jiiftay oo aad fadhiisatid ama istaag soo socotid wuu kaa yaraanayaa, ama aad u socotid oo ku qabto aad fadhiisato ama aad jiifatid wuu kaa baaba'ayaa. Haddii badanaa qubeys biyo kulul aad ku qabeysatidna wuu kaa baaba'ayaa. Marka xanuunka foosha runta see waaye marka sidee ku ogaan kartaa waxay ku kala duwan yihiin. Xanuunka foosha runta wuxuu sababaa inuu makaankaaga furmo, wuxuu kaloo yacni joogaa xanuunkaas wuxuu joogaa 30 ilaa 70 second, yacni 30 second ilaa 70 second daqiiqad wax yar dhaafsiisan oo xanuunku haynaya oo dhaqso ma joogsanayo kan. Yacni wuu isku soo daba xigsadaa, wuu isku soo dhawaadaa like xanuunkaaga 5 daqiiqo kasta kadib hadduu ku qabanayo definitely fool ayaa ku hayso. Maxaa la wuuna dheeraaday yacni xanuunka marka ugu horeysa tartiib uu ku bilaabanayaa, hadhow markuu ziyaadaya xanuunka aad iyo aad u dareemaysaa. Marba marka ka dambeeyo xanuunka foosha aad u sii kululaadaa ma fahanteen. Sida kan kaleeto laakiin oo xanuunka oo maxaa la fooldiinka bataatan xanuunna ma lahan mana ziyaado, wax iska imaana iska baxay oo murqa taag aad dareemaysaa camal leeyahay. Goormaa laga rabaa inaad dhakhtarkaaga wacdid haddii maxaa la xanuunka oo yacni isdaba joogto aad dareentid adoo 37 isbuuc ka yar waxaa laga yaabaa in uu ku hayo fooldiin maxaa la dhicis yacni premature labor waxa la hayo in uu yacni soo degdegay fooshaada xilli ka hor ee imaatay. Haddii marka xanuun aad dareentid oo adiga nooc kale aad dareentid dhabarka iyo maxaa la lafta gumaarka kore iyo caloosha inta hoose aad ka dareentid waa muhiim inaad dhakhtarka wacdid. Haddii xanuunkaaga uu aad u bato
waa inaad dhakhtarkaaga wacdid. Haddii oo biyo ay kaasoo daataan waa inaad dhakhtarkaaga wacdid. maxaa la marka haddii waqtigaaga uu dhamaaday maxaa la oo aad rabtid inaad gurigaaga fooshaad ku dhamaysatid, adii waxay ku xiran tahay dhakhtarkaaga iyo adii wixii aad ku heshiiseen. haddii isbitaalku uu dhow yahay camal guriga waa ku dhamaysan kartaa fooshaada, laakiin haddii isbitaal uu kaa fog yahay waxaa fiican haddii xanuunkaaga isdaba joog oo noqday oo 5 daqiiqo le u dhexeyso inaad isbitaalka aad tagtid. maxaa la marka haddii oo uurkaaga bilowga ilaa dhamaadka qayb ka mid aad dareentid oo maxaa la waajib ay tahay inaad dhakhtarka wacdid, waxaa waaye haddii xanuun aad u badan caloosha ka dareentid, haddii dhiig uu kaa imaado, haddii aad dareentid cunugaaga dhaqdhaqaaqiisa inuu joogsaday bataatanbo, haddii aad xanuun kale aad dareemaysid dhakhtarkaaga wac. maxaa la haddaan usoo laabano qaybta oo fooldiinka waxaan ku dhahay waxaa ku caawin kartaa inaad adoo socoto hadoo ku qabto jiifatid ama vice versa, inaad biyo kulul ku qabaysatid, masaajar isku samaysid, inaad neef badan qaadatid, markaas wuu kaa saacidayaa. laakiin haddii waxaas wax ka dheeri aad dareento xanuun badan dareento ama dhiig kaa imaado ama oo wax shaki yar uu ku galo, please dhakhtarkaaga wac. waxaan rajeynayaa inaa cover gareeyay badanaa yacni wixii ku saabsanaa fooldiinka iyo foosha saxda waa mahadsantihiin. lasii wadaaga hooyooyinka cusub khaasatan kuwa aan aqoonin. waa mahadsantihiin dhammaantiin. jazaakum allahu khayr. salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.